madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu maanta kulankii ugu horeeyay uu la yeeshay guddi u dhawaan u magacaabay ka hortagga xanuunka caalamka faraha baas ku hayay coronavirus. ugu horeyn madaxweyne Biixi oo madasha ka hadlay ayaa waxa uu ka warbixiyay baaritaano ay xukuumaddu ka bilowday goobaha xuduudaha iyo garoomada dadku ay ka soo galayaan dalka. sidoo kale madaxweyne Biixi ayaa waxa uu sheegay in wixii awaamiir iyo talooyin ee ku saabsan ka hortagga xanuunkan loo daba fariisan doono wasaaradda caafimaadka Soomaaliland isagoo dhanka kalena shacabka Soomaaliland ugu baaqay in ay si guud ugu diyaar garoobaan ka hortagga sidii ay xanuunkan uga gaashaan lahaayeen. madaxweynaha oo arrimahan ka hadlay waxa hadaladiisii kamid ahaa maanta halka waxaan soo nimid waxaan ka hadlaynaa waa arinta xanuunkan adduunka ku faafay viruska ilaahay nooma keeno laakiin adduunka dadkii ku noolaa meel kasta jooga adduunka dacalkiisa warwar buu ku abuuray iyo cabsi taa caalamkan kala mid ah cid waliba itaalkeed iyo taladeed iyo ismaqalkeed ay kaga diyaar garowday inaguna taa adduunkan kala midna ilaahay mahadi maanta dalkeena wax uduruhu ka jira ma jiro saaka shalay ayaa tijaabada dadka wixii la baaray tiradooda ardii sheegi doonaa muddo ilaa maalintii aynu samaynay taxadirka ee airportka aynu tagnay aynu goobaha dalka laga soo galay waa weyn dalkeena meelo badan baa laga soo galaa xuduud weyn bay leedahay wado waliba way furantay laakiin meelaha socodku u badan yahay marka la qiyaasay ay wasaaradda caafimaadku waxay geysay in la kantaroolo xumadda loo filayo ciddaas inay cudurka qabto oo adduunka oo dhan u istaandara markaa maalin walba waxay soo gudbiyaan dadka waddadaas soo maray waddooyinka ah iyo tiradooda taasi waxay noo sheegaysaa dee wixii meel kale ka soo galay ee lug inagu soo gala ilaahay manu ka magan gelinaa inuu naga qabto laakiin meelaha laga soo galo inuu ka fayoonahay gudaheena anaga waxba ka dhicin ilaa imika meel laba rug caafimaadba wixii aanu xalay ku soo hooyanay sida xoolaha la raacay xalay maxaa lagu soo hooyay waaguna ku bariyey shalay maqribkii wuxuu noogu dhacay tukaraq waxaa la baaray oo soo maray 109 qof dhammaan way caafimaad qabeen wax laga shaqeeyo lama arag yube waxaa la baaray 10 qof oo soo maray controlkii ay yaaleen baaristu way caafimaad qabeen dhahar 9 qof baa soo maray way caafimaad qabeen 9 qof wajaale 540 qof baa ka soo galay dhammaantood caafimaad qabeen wax laga shaqeeyo lagama arag berbera waxaa ka soo galay 19 qof oo u badan kuruuga maraakiibta baashar kama soo galin way caafimaad qabeen markii la baaray lawi cado 138 qof baasan jara wax laga shaqeeyo lagama arag Egal airport waxaa ka soo galay 262 qof wax laga shaqeeyo lagama arag tiradaas shalay galabtii waago gobolku noogu dhacay ilaa imikana wixii soo maray xadka jooga tiradoodu waa la soo tabinayaa wali wax shaki u kaysa mahayno taxadirka waxaanu soo oranahay in isugu xidhno warka ilaa goobta ilaa madaxtooyada ilaa wasaaradda dalkii inuu soo dhawaaday marka cadsayn hore lagu sheegay dalkeenu isu furan yahay cabsiyadu wada qabnaa inuu iska wada eegana arinta marka ilaahay mahadi waa nabad qabnaa waxaan soo qabnaa warwar adduunka oo dhan qabo gobolkeena ka soo dhawaaday doorto waxaan magacaabay 5 wasiir oo hogaaminaya arinta oo shaqo qaran 5 wasiir oo kala asaagtiin oo hogaaminayso caafimaadku daakhiliga waxbarashada awqaafta iyo warfaafinta wasiirka daakhiligu dalka oo dhan iyo gobolada iyo degmooyinka saaka mas'uula marka hadii loo baahdo talaabo in la qaado culayska weyn isagu saarmaya amnigiina isaga haya wasiirka awqaafta dadka inta u badan ee warka gaarsiisa culimada ee masaajidada ee waxyeelada isaga isgaarsiintooda laga raba inay wasaaradda caafimaadku isagana hawsha u dirto uu furiyo wasiirka waxbarashada waxa ay in ku dhow 600 oo kun oo arday 500,000 arday dadka u badan buu haya
oo ku xiraysan meel xidhan ardaydana kalaasada qaar bay 80 wada fadhiistaan boodhina jira tiro badan oo laga yaabo habeenkii inay konton meel wada seexdaan xilkoodii waa saaran waxa kale oo inoo xiraysan maxaabiistii oo meel ku xirsan oo u baahan in la ilaaliyo inaan cudurku tallaabin waxa la mid ah dadka dhakhaatiirta ku jira ee buka oo u nugul oo u baahan in la ilaaliyo waxa u baahan ciidamadii oo xiriir ku jira oo u baahan in la ilaaliyo intaaba waxa ka badan inta qayasha in farishtiisa ku timaada in warso hayn oo u baahan in ay ilaaliyaan adduunka oo dhamay wuxuu isku raacay malaha dawo lagu daweeyo ee waa laga hortagaa istabiska leeyahay laga hortago waxa ugu horeeya in meelaha lagu soo ururiyo la daayo ururka la joojiyo caalamka oo dhan isku raacsan inagu meelo badan ururkooda waxa ku jirta nolol maalmeedkeena sayladaha xoolaha shaqaalaheena u badan iyagu tagaa suuqyada wax lagu iibiyo ee khudaarta iyo cuntada iyo lagu ilow kala adeegtana dadkeena inta u badanay iyadoo u shaqo tagaa oo ka maarmi karaan haddaba waxaa loo baahan yahay ka maaran waagii nolosha iyo caafimaadka saynu u ilaalinaynay in la iswaafajiyo waxaan doonayaa inaan u sheego ummadda Soomaaliland iyo dadka oo dhan wixii deganba inaynu maanta ku soconayno awaamirta wasaaradda caafimaadka cid kale amar kama bixin karto cid kale kama warrami karto anigoo madaxweynaha waxaan raacayaa amarka uu isiiyo dhakhtarka u hadlay wasaaradda caafimaadka istaag taagno goorana ku xidhan waan aqbalaya cid ha salaamin waan aqbalaya kama hadli kartid waan aqbalaya wasiirku tiisu raacaya jananku tiisu raacaya saxafigu tiisu raacaya ninka baacmisharkii toodu raacaya sidaa waxa ku jirta danteena saa nabad galo laga bilaabo imika maalin walba guddigan waxay soo saaraysaa war isugu jira wargelin waano iyo haddii loo baahdo amar iyo haddii loo baahdo in tallaabo sharci laga qaado ciddii fulmaya oo ku saabsan uun caafimaadka duruufo adag baynu ku jiraa dadkeenna boqolkiiba waxaa laga yaabaa 60 magaalooyinka jooga quutal maalmeedka waa shimbirahoo kale way ka lahaan iyo arsaaq iyo fataax sayladu tagaa suuqyada kale u tagaa wuxuu la soo noqon soo hida markaas si dawladda waaweyn wada shaqeeya kayd kale wuxuu yaaleen dees mooda xir karo laakiin waan warti qaadana marka haddii alla yiraahdo talaabooyinka saano soo socda iyagu maanta laga bilaabo sibay u hawlgalayaan goboladana oo laga soo inay degmooyinkan waxaanu diyaarinaynaa meel dadka lagu karantiimeeyo 60 magaalo ee waaweynba xadkeena dheer meelaha la tagi doona meelaha la isla ugu dad badan yihiin waxaan u dir doonaa caafimaad diyaarado badan ma lihin diyaaradaha yimaada waxa ugu badan taargisa timaada ee baashir kasta inta ka soo gada xuduud ka badan dadka Itoobiya laga soo qaado 100 ama 200 bay soo qaada waa arkaysan wajaala ka xoogay wajaala 500 ee soo galay 200 ka soo degay barku ay urursan yihiin waa la ururin karaa aw la qaban karaa marka waxaanu haynaa xad la wicado ilaa ay ceelaayo oo boosaasagteeda barsaw raaxadka halka ka wareeg boo hada dhaaf ka soo wareeg xadka xeebta dib ugu noqon xadka waxaanu kaga mid galnaa oo talaba qaadanaa in dawladaha aynu jaarka nahay bari iyo galbeedba dhinaca bari waa Puntland dhinaca waa Ethiopia waa Djibouti inuu iyaga la leeyahay xiriir aad iyo aad u midaysan oo colkan iska gooda fiican waa in wasaaradda caafimaadka ee dalka dariskiina ka mid ah oo talaabo isku mid ah qaadaan baynu galeynaa oo la xajin marka maanta waxaan idinku yeeray inuu dadkeena warkaa gaarsiino waxaa saa jira kolba tallaabada la qaadayo laga maarmaanka ee loo baahdo wasaaradda caafimaadka ee guddidana bixinaysa haddii loo odhanayo halkaa ha la xidho haddii loo odhanayo tallaabada ha la qaado oo tallaabo kasta ah ilaan wixii waa dhibaatayna dul taalle maxay soo la tiraahdaa nabad wax kuma yeeshee dhibta u toogahay
in haddii waxaan u soo baxaanba aynaan noqonin dee xaggan u dhaqaaqno inaan wareerin ee inoo jeexnaato tallaabooyin kaynu qaadayno 1 2 3 fariinta wargeysa aan ka codsanay waxa weeye in loo hoggaansamo awaamirta dhakhtarka kolka hore waxa la yidhaahdaa yareeyo meelaha lagu soo buuqayo aroosiyaa jira qaylaad baa jira xafladaa jira intii laga marin karo waa la yareeya ilaa nafteena waxaan ka hadlaynahay taa marka la yeelo waxa gayaalaha ku xiga ee la sheegay in wada ognahay faraxal leh imika aniga dhakhtarka waxay siinayaan maalmahan ay iga wareeriyeen waxaan ahay dadka markay ama hadlayaan ama meelaha joogaan farahooda meel dhaqdhaqaaqa badan san yidhaahda hayso inta maa taan baa la igu yidhi waa tay ugu dhib badan meel xaadaba gacmaha idin kale waa la siinaya amarka anigu amray la hadhan wajigaa ha u dhaweyna gacmaha idina wada qabtaan amarka dhammaantiin waa wada qabnaa amarka ilaa caafimaadka ku xidhan marka dadka gacmaha dhaqdhaqaaq badan anoo kale dee waa mar walba xusnaad dhaqaajin muraadi hadda ka baxaysa xagga ka qabo marka ama raacankaasoo shakhsiyan lagu soo socday qoysba inta waxaan dhaafay laba qolo ayaan fariintaa u sii mareen maanta u soo baxay mid waa culimadu warka ay dirayaan waa in mudooba dad baa waxay yidhaahdaan cudurkan kuma dhaca muslimka gaaladu ku dhaca oo waa wax gaaladu inoo kaleeto waa wax hadar bini aadmigu waa isku mid cudurku wada qaada gaal iyo saabna uu ku dhacay sina waa looga wada taxadiray oo waa laga wada hortegay markaa qofna ayaa lagu aaminsan in cudurkan muslim kuma dhacay waa ciqaabe cudurkan dadka wada gaadhaaya si ha lagu wada taxadiro dadka ka taxadirka loo wada sheego oo ha la wada maro culimadu roolka ugu weyn ka qaato oo caqiida ahaan nadaafadda iyo islaalinta waqaayad inuu waqaayadu ka waraystaa ka dootaga hawl sheegaan waa la hayaa xadiis dhaba oo markii ay asxaabtiiba joogtay inuu ka dhacay shaam daacuun oo la yidhi cumar bin khadaab ha gelina ka soo noqo oo joog taas waa mid qolna waa saxaafadda maanta dalku ciidanka quru haysto ee cudurkaa wax ka qaban karaa ee dagaalkaa geli karaa waa saxaafadda iyo isgaarsiintu iyo muxuu ahaa social media dhammaantiin waxaan ka midaysanahay waa naftaadii waxay dhakhtaradu ugu amraan sideeda u gudbiya iyo inaan gelinin maaragtay war aduu aad meel kale ka maqashay iyo jaridaad meel kale ka soo akhriday iyo dhakhtar aad la sheegtay wuxuu ku yidhi iyo waa in waxaynu mid ahaada wixii tale la hayo guddida loo keeno wixii feedback la hayo ee war malaa talaba taanaan ku darro guddida lagu soo shubo saanu talada hayno ilaahay idinkii ilaahay wuu inaga badbaadin waxba inagu soo bixi maayaan laakiin iminka dalka waxaynu gelinaynaa digtooni 100% digtooni 100% kolba tallaabadii maanta loo baahdana inaanu qaadno caalamka xiriir xoog laanu samayno hadday dowladaha tahay hadday jimciyadda qurba ka dhexaysa huu tahay iyo cid loo nustaana waxay kala tarayaan waanu u diray in arrintaa aanu iska kaashano nagana caawiya intaa waxaa ka weyn ducada ee bahay ilaahay baan baryaynaa innagu ducada ilaahay baan baryaynaa inuu ilaahay naga safta saaro masiibada adduunka ka dhacda maanta in hortahay intaa waxaa ka dheer wuxuu keeni doonaa hoos u dhac dhaqaale oo innagana inuu keeni doonaa adduunka kala xidhan baa dhacaya diyaaradii waa taal joojinaayo baduhu ku yaraanaya isocodkaa yaraanaya labadii qof ee jaarka ahaa baa yaraanaya labadii qof ee saaxiibada ahaa wax cuni jiray isku dhawaanaya baa kala durkaaya taa lafteeda qof wala waxaad saddex dhaqaalayso ummad waxaynu maalinta ahay laba dabka saarta weliba ragga mid qayra saaxiibadii la boodbooda mid loo $10 maanta $20 dabku saara markaa kuwa haystoo taajira iyo ku faqiirabana aynu waxayna kaydsan aynu ku darro inaynu iskaalmayno mar haddii la kala xidhmay inteennii fuqarada ahayd dee way sii go'doomaysa markaa ka taajirka ah iyo koo waxaya iyo hanti qaran wixii la hayana ha la wadaago oo ha la isgaarsiiyo ibraahim ismaaciil shabakadda wararka News magaalada Hargeysa